waxaa maalmihii ugu dambeysay soo tariyay shirkadaha ajaaniba oo farabaan ku haya xeebaha degmada Saylac gaar ahaan magaalada Lowyacdo shaqaalaha shirkadahan ayaa waxa iyagu laga keenay dalka Sri Lanka iyagoona gabi ahaanba shirkadahan ay bartilmaameedsadeen hal nooc oo kamid ah kalluunka ku jira xeebaha degmada Saylac kalluunkan ayaa waxa ay shirkadahan u dhoofiyeen isagoo nool dalka dibadiisa isagoona kamid ah kalluunkan noocyada ugu qaalisan isla markaasna lagu daawado hudheelada ugu qaalisan caalamka shirkadahan ajaanibka ay ku soo batay magaalada Lowyacdo ayaa waxa iyagu ka kacay kalluumaysatada ku dhaqan magaalada Lowyacdo iyagoona ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland iyo wasiirka kalluumaysiga inay wax ka qabtaan shirkadahan ay sheegeen inay xaaluf baan ay ku hayaan xeebaha degmada Saylac iyagoona sidoo kalena sheegay inay haba yaraatay ee dadka deegaanka ay waxba ku qabin ugu horeyntina waxa soo halkaas ka hadlay gudoomiyaha quusayaasha Cabdi Cilmi Yuusuf waxaan ka cabanaynaa xukuumadda Soomaaliland waxay ballan qaaday in shaqadan muwaadin uu garanayo in ajaanib uu qaban waxaana la dul keenay anagoo shaqadii xirfadna u leeyahay 300 Sri Lanka la dul keenay waxaan ka cabanaynaa xukuumadda Sri Lanka soo dul degay meel ajaanib inta leegi jooga ma jiro Soomaaliland 300 ajaanib oo Sri Lanka iyo Hindiya laga keenay la dul keenay shaqadii markaan dadkii shirkadaha lahaa markaan ku shaqadii muwaadiniintii Soomaalidu waana kana shaqadan waan qaban naqaanaayeen noo dhiiba way noo diideen shaqadii marka cabashadaas ayaan gudbinaynaa badana kalluunka la guraya ruqsadaha waxa lagu soo qaataa kalluunada kale laakiin kalluunkan la guraa waa kalluunka yar yar ee la daawado hudheelada Yurubta lagu daawadaa kaadu ahaan baa loo guridaa marka la daawadaa waana kalluun qaali ah midhiisa waxa la siiyaa $50 baa suuqa adduunka la siiyaa iyo $80 baa la siiyaa midha ajaanibka soo duulay ee la keenay Lowyacdana ma aha meel Sri Lanka tuulo Sri Lanka ku taala ma aha waa tuulo ku taala Soomaaliland waxa weey waanu soo samirnay intaas oo dhan baanu deganayn gaadiid baanu leenahay dad asxaabul maalan nahay kuna gaajooday kuna dheregsan baanu nahay waxaanu ka cabanaynaa xukuumadda Muuse Bixi uu xukumayo waxaanu u sheegaynaa hadii wax laga qaban waayo arrimahaasi cunaqabataynta ee ay dadka Soomaalidu ay soo waaridayaan wixii ka dhacay anagu mas'uul kama nihin ictimaadka laga guraya dhulka waa kuwaas halkaas ay ku dhan yihiin waa ammaanka aw dugsada kalluunka waaweyn ee wareegaya reer Guraagi markuu kaasi arko halka uu ku nool yahay ayuu aaminayaa inuu nabadgelyo haysto marka uu halkaasi waayana mabadagay uu wareegaya had iyo jeer marka xukuumadda taas aanu u sheegaynaa waanu ku wargelinaynaa Somaliland ka kalluumaystana iyada haween ku jira waxa weeye waa inta muddo waxay ku korisay 9 caruur ayay in ka badan ayay ku korisay had iyo jeer waxa weeyaan dadka u soo foojigan badda xaq weyn kule ayay kamid tahay sidoo kale waxa iyaduna halkaas ka hadashay haweeney kamid ah kalluumaysatada ku dhaqan magaalada Lowyacdo oo iyadoo caan ka ah magaalooyinka ku tirsan xeebaha degmada Saylac iyadoona haweeneydan ay qabato hawl kasta oo qaban lahaa qofka kalluumaysatada ah isla markaasna ay ka soo shaqeynayso muddo ku dhawaad 20 sano ajaanibka badda nagu soo duulaan ka hadlaya anagoo dad muwaadiniin oo reer Lowyacdo ilaa wax laga qabato anagu waxaanu ka cabaynaa maanta cabashaan xukuumadda aan weydiisay waxa weeyaan waa in wax ka qabato maxay qolada Sri Lanka ay wadanka noqoto waayo iyadoo badii maartaan xalifiyay anagu ma gaadiidna akreesani qofka maartaan guri aan la qarqaraacin oo la sagalo un meeshan hadar ay noqoto halkaygu waan taana waa ka dhidhin anagu waa diinay sax taana waanu ka dhidhin walaal waan diinay waxa waxaydaan aan hadal ku soo gulaanadaya war hawsha aan laba hayna mar hayna saddex hayna maanta aan dhidhin codkayga waa in xukuumadda wax ka qabato kalluumaysiga وعلي أحمد ديري علي دقدلول ورك أريال تي في مقالة Lowyacdo